soo doorto bariga degmada Boorama halkan maanta waxaan fadhinaa inaan dhaliil u jeedino maamulka gobolka Awdal iyo ka ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan booliska oo labaduba ku eedeysan wixii halka ka dhacay inay ka dambeeyaan haddii aan ku horreeyo maamulka gobolka Awdal horta dhamaantiiba waa fadhi taliyaha qaybta maanta loo soo magacaabay gobolkuna wuxuu noqday uu ku dilaale oo hadba qofka la soo xiro qiimihiisa baayacayo oo saldhigga dhexe degmada Boorama dhex fadhiya waa ka maanta xuduudihiisii ay boobayaan waa dhulkii amnigiisa ka mas'uulka ahaa taliyihii qaybta ee deegaanka uu ka hadlayo weeyaan hadiiba uu nin dameero oo xuduudaha gobolka amnigiisa loo soo magacaabay oo gaar ka hayo taliyaha qaybta deegaanka kama hadleen garbihaad iyo degmadii magaalada waa dhaliil uu leeyahay waxa weeyaan taliyaha qaybta gobolka Awdal gudoomiyaha gobolka waan ka raaligelinayaa inta badan soo safar buu leeyahay magacayahay waxaan salaahay halka uu ka hadlayay gudoomiyaha ku-xigeenka gobolka Gabiley waa booskaaga adiguna ay garo taasi waa taa waxaan dib ugu soo noqonayaa siday wax u dhaceen waxa weeyaan marka markaan ka hadalno degmada magaalada cawaaqibta haysata iyo maamul xumada iyo dawlad xumada haysata waxa koow ka ah oo aaba oo u sala waxa weeyaan dawladda dhexe guud ahaantii sariixa jaranka ina fadan intaasoo jeer baan u tagnaa anagoo mas'uuliyiina oo wasiirada ka mid yahay oo anigu la socdo oo rabaax la socdo oo suldaan Saleeman socdo intaasoo waraaqood baan u geynay foqna sidoo kale laba jeer halka ciidanka qaranka ee booliska la tirinayay cabashada waan hor dhignay degmada Boorama markaad ka bilowdo controlka degmada Boorama ilaa garbihaad hal askari ma dhex joogo amniga ayaa ka mas'uuliyad dadka haddii laba xaafadoodba islaayaan cidii ugu dhow soo gurmanaysa annagu waxaan qabnaa gurmadka koobaad ay helaan dadka intaa leeyahay deegaanka intaa leeyahay waa dawladda Itoobiya dariska nahay waa new booliska garbihaad iyo degmada Eran gurmad kale ma haystaan waxay cid maalin walba kala xaalaan oo toddobaad kasta ay kala xaalaan oo bil kasta la xaalaan oo dheeri ay kala xaalaan xaaladda amni ee degmada waxa weeyaan waa new booliska weeyaan wada shaqayn dhamaystiran weeyaan siday ku soo galayna si sharci darro ama ahayd waa mid baahiya qaba oo degmada ka timiday oo magaalada ka timiday oo dadkayga iyo maamulkayguba ay ka wada socdaan oo had iyo habeenba ay yihiin ma garanaysaa dad u baahan oo dhex jooga sababtana waxa iska leh waxay ka waayeen Jamhuuriyadda Soomaaliland ay ka tarsanaayeen inta ay ka heleen booliska waana ka raaligelinayna qaladka ka dhacay meeshaas maamulka gobolka Gabiley iyo kan wajaale waa duulimaad cadaan waa dhulboobkii gobolka Awdal qayb ka mid ah yaa keenay yaa u yeeray yaa yiri ka howlgala yaa yiri new booliska ka jooga kala dagaalamo xuduudda ka saara annaga oo yeeranay amni baan u yeeranay gudoomiyaha magaalada ninka loo soo magacaabay degmada magaalada waa miskiin lugaynaya isagoo magaalada jooga hadii laba xaafadood ay baadheer isku laayaan oo tuulada yara oo baro xitaa waa inuu lugeeyo oo 7 saacadood si lugeeyo waxa sahlanaatay inuu intuu maamulka oo bare la hadlo yiraahdo wararka ciidan iyo dinu labada reer kala qabta waa gurmadka koobaad oo helo weeyay waa baahiyaadka aan qabno waxa weeyaan degmada ugu xigtay oo bare oo daliyo dhasheedna waxaan noo kala soo calaameyno dadka deegaan waa dadka degmada magaalada deegaan waxaan leenahay Gabiley wareebo jaalow حقي مجال وجهه على وضع الهواء طلع ورتين وضع قاطين واحد سأصوص عطاني من كقول سو هذا التاجي سأعطني له مجال على صوب الشام قرض كده على سويد ذي كاره وحيد عينا ذي كاره جمهورية الصومال الآن بمقر كاسو نصارينا وعواقب يوم مسؤولية الضرر أي يوم يسكلي هنويا سببت دقمة الدم مجال على يلاحظه هل عسكري بوليس عمله sababtana waxa iska rajinta booliska duulimaadka maanta la soo qaaday ciidanka lagu soo qaaday gurmadka waxa ay booliska janka ka dambeeya faragelinta janku uu ku hayo
degmada magaalada ee ciidankii soo gurmanayay booliska ahaa ee degmada awbarre ahaa ee xataa abaaraha calafka u keenayay ee biyaha iyo baadka u keenayay xoolaha ku soo qaxay ee reer Soomaaliland oo dhan maanta degmada magaalada dhex fadhiya waa gurmadkii ugu horreeyay ee helaan waxa uu keentay degmada awbarre waa calafka waxa laga keenay xoolaha iyo biyaha waxa loo keenay awbarre loo keenay هيري هو وين اللي قرب شوان أمني قبل قا دقمة مجال عضلة يجا قاعد كحيل والمسؤولية دي سيحب كله أروح أنا وين هاي حدي ماشي سومال أنا يتعين ها الشخص اللي يجي بوليس يعيد في بوليس هذين سومال أنا هاي ندور من خطر سنة أو برا أنا هالكاس أمر عن أنه كل هذا ينتظر ماذا يحقق موضوع هاي يا دين ما ذا غير نجدا يفرقين يبغوا غير الشافعة حبضها حدود ضادين إنسان ناجح إحنا إنسان عروض تيجي حوالها يدك مساكين تيجي برا ما قصوا حياة دلدقين غيرها ولا دلدقين وحنقول أنا بقول غير بشكل دايم كان كبوليس كان هذا بيان ولا عيد أنت صدقا وتشارع مجرد سكشة غير تهريبتنا حنقول شيء إن صدق صدق بقى قصة مثلا وتهريب كانوا قرية مجال ninka iska dhigna waa taliyaha saldhigga booliska iyo wajaale waa haddii aad amni ka shaqeynayso oo buux ka shaqeynayso dad xiramaad samaysateen saldhigga oo ku taala wajaale ee magaalada ku taala oo ku kalluumaysato oo kharashkayga iyo jaadkayga iyo budgetkayga qaadato adigu waana chance aad u heshay xaaladda aad ka wadana meesha waxa weeyaan xaalad nabadgelyo darro ciidanka booliska wajaalena waxaa meesha ay ka gudiyeen dhammaantood iyaga iska dowladda Itoobiya iyo new booliska walaalaha ahay iyo dowladda iyo degmada awbarna waxaan leenahay dhammaantiin waa naga xaalsiinay dowladda Soomaaliland in ka tirsanahay way qaldan tahay waa dulmiye tacaddi aan ku xaqabna anagu waxaan leenahay waa la yaalo